seminaarkan aqoon kororsiga ayaa waxaa ka faa'iideysanayay 200 oo ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada dalka kaasi oo ka soo qayb galay agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya soona qaban qaabiyay maamulka jaamacadda SIU ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho seminaarka ayaa waxaa ka soo qayb galay macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee dalka waxaana loogu talagalay in sare loogu qaado aqoonta macallimiinta Soomaaliyeed si loo tayeeyo tayada macallimiinta Soomaaliyeed agaasimaha xafiiska arrimaha bulshada ee jaamacadda Somali International University SIU Ahmed Abdi Hadi ayaa ka warbixiyay muhiimadda seminaarkan uu leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed mowduuca koobaad oo saans la afgaran tabarayaasha macallimiinteena noqon doona curiska creativity ardaydu ay leeyihiin arday badan oo dugsiyada sare dhigata macallimiintu xun bay ku shubaan laakiin ayaga lama qodo ama ma loo madax banaan u fikiraan marka ardayda in la kaakiciyo methods waxbarashada kaakicinta ardayga chance la siiyo uu explore garay asagoo ay dhaween badan uu sameeyo uriyo Ustaad Cabdirasaaq محمد حاشا نو سو جين دون ان شاء الله دوله يراهدو gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Somali International University SIU yaana madaxa waxbarashada iyo arrimaha ardayda Shaafici Diiriye Cabdi ayaa ka hadlay ujeedada laga leeyahay seminaarkan wuxuuna kula dardaarmay macallimiinta ka faa'iideysanaya seminaarkan in ay ugu faa'iideeyaan waxa ay ka barteen bulshada Soomaaliyeed waxaan isleeyahay muhiimadda macallimiintu u leeyihiin bulshada qof kasta oo naga mid yahay waa ka warqaba macallimiintu ama secondary ama jaamacadda ha ama jaamacadaha ahaato waa mishiinada dhaqaajiye waxbarashada meesha buriista kor lagu magado waxbarashada taalla haddaan macallin jirin waxba ma jiraan sidoo kale waxaa dhacdaa inta caadigaaba oo mar walba iska timaada bulshadu markay isku timaado xataa haddii isla cilmi yihiin oo mararka qaar dhici jirtay wax tababar haddii waayaan in ayaga dhexdoodu ay kala faa'iideystaan waa wax dhici jiray waxaan codsanaa agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan ayaa ku booriyay macallimiinta Soomaaliyeed doorka ay ka qaateen tarbiyeenta ardayda Soomaaliyeed ninaan faculty of education ka soo bixin oo loo diyaarin inuusan macallin ka noqon dalka oo dugsiyada lagu kontrolo macallinku waa inuu faculty of education ka soo baxo faculty of education waxa waaye waa wax ugu yani waa loo soo diyaarin waana lagu tababarkaa sida dhakhtarka faculty ka soo baxay dhakhtarnimaa la soo baray waa inuu fieldigiisa aadaa Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.